السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada war waxaan caawidin haynay youtube-keenan badiya bari channel wararka caawaan idin hayno waxa ugu dooroon howlgal military oo ka dhacay Soomaaliya oo Mareykanku fuliyay iyo horumar amni oo ka socda Kenya arrimaha Mareykanka iyo Canada iyo qaaradda Afrika iyo Yurub iyo wararka Soomaalidaba halkan caawidi ka sii deyn doonaa ku soo dhawaada warkii oo fidsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika Africom ayaa fuliyay duqeyn military oo ka dhacday koonfurta Muqdisho taasoo lala beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab howlgalkan ayaa lagu fuliyay iskaashi buuxa oo lala yeeshay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ujeedadu ahayd in lagu wiiqo awoodda dagaal ee kooxda Al-Shabaab sidoo kale mashruuc ballaaran oo lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha Manda Bay ee Kenya ayaa maanta si rasmi ah loo bilaabay mashruucan oo ay iska kaashadeen Mareykanka iyo Kenya ayaa ku kacaya 71 milyan wuxuuna qayb ka yahay dadaalada ay dowladda Kenya ugu jirto inay ballaadhisay riboodhadeeda sidoo kale wararka ka imaanaya America hogaamiyaal ka socda gobolka Alberta Canada ayaa la kulmay xubno ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump iyagoo dalbaday taageero iyo maalgelin gaadhaysa 500 bilyan si ay uga go'aan dowladda Canada ra'iisul wasaaraha Canada Mark Carney ayaa uga digay Mareykanka faragelin arrimaha gudaha ee dalkiisa sidoo kale wararka naga soo gaadhay Uganda Muhoozi Kainerugaba oo ah wiilka madaxweynaha Uganda ayaa raaligelin ka siiyay Donald Trump kadib hadallo muran dhaliyay oo uu hore u jeediyay sidoo kale dibadbaxyo ballaaran ayaa ka socda gobollada Minnesota iyo Ohio kuwaasoo lagaga soo horjeedo xaaladda shaqo waxbarasho iyo ganacsi sidoo kale wasiirka difaaca Sacuudiga ayaa Washington kula kulmay ururo yuhuud ah si loo xoojiyo xiriirka u dhexeeya boqortooyada Sacuudiga iyo Israa'iil sidoo kale dowladda Iran ayaa sheegtay inay diyaar u tahay wada hadallo ay la yeelato Mareykanka balse aysan aqbali doonin cadaadis iyo hanjabaado sidoo kale Imaaraadka Carabta gaar ahaan Dubai ayaa ku dhawaaqday mashruuc waddo dahab ka samaysan kaasoo laga yaabo inuu galo buugga Guinness World Records sidoo kale wararka ka imaanaya Australia ayaa wajahaysa dilaac kulayl iyo dabaylo waaweyn oo carqaladeeyay gaar ahaan gobollada Victoria iyo New South Wales waxaa sidoo kale jira xiisado siyaasadeed gudaha dalka la xiriira muhiimadda bulshada iyo socdaalka sidoo kale madaxweynaha Mexico waxa uu ka digay in cashuuraha Trump ku socda aaladaha shidaalka ee Cuba ay sababi karaan xaalado bini'aadanimo maadaama Cuba saliid ku filan haysato dhowr toddobaad sidoo kale wararka naga soo gaadhaya Afrika warbixintan Africa Review January 2026 ayaa muujinaysa xaalad amni oo cakiran iyadoo kooxo hubeysan ay ka talinayaan qaybo ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo DRC duqeymo ka socda Nigeria iyo xasilooni darro siyaasadeed iyo military oo ka jirta dalal badan oo Afrika ah wararka Somaliland ayaa la sheegay inay qorsheynayso in hawadeeda ay ku wareejinayso Israa'iil sidoo kale xogaha hadda soo gaadhaya wararka hadda soo gaadhaya waxay sheegayaan in 40 dowladood ku dhow la qorsheynayo inay aqoonsan doonaan bishan soo socota Somaliland wararka ka imaanaya Soomaaliya dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa kala saxeexday heshiis lacageed oo gaadhaya 1 milyan kaasoo lagu taageerayo mashruuca horumarineed ee bulshada sidoo kale Mareykanka ayaa dib u bilaabay gargaarkii bini'aadanimo ee uu siinayay Soomaaliya kadib markii
hore loo joojiyey sababo la xidhiidha eedeymo ku saabsan burburka iyo raashinka la boobay oo Maraykanku uu diiday, haddana dib uu u bilaabay. Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa beenisay eedeymahaas iyadoo sheegtay in mashruuca dekedda dhisme ah uusan saameyn ku yeelanayn gargaarka. Sidoo kale, dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Maraykanka, gaar ahaan Minnesota, ayaa muujiyey cadho iyo niyad jab kadib hadallo adag oo uu madaxweynaha Maraykanku ku yidhi Soomaaliya, kuwaasoo lagu tilmaamay kuwo gaf ku ah bulshada, taasoo aanay waxba ka qaban karin dowladda Soomaaliya oo dhegaha ka furaysatay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale maanta soo saartay warbixin toddobaadle ah oo ku saabsan horumarka howlaha iyo qorshaha dowladda. Arrintaasina kama aysan jawaabin shacabku Maraykanka jooga ay ka soo dhawaajiyeen. Daawadayaal, war waxaan caawa idiin haynaa waa naga intaa. Habeennimo wanaagsan. Mahadsanidin. Daawashada haddii aad ka heshay fiidiyowgan, ha iloowin inaad like noo saarto, comment tagto, subscribe ku samayso si aad ula socoto fiidiyoda cusub ilaa fiidiyoda xiga. Nabad iyo farxad baan idin rajaynayaa dhammaantiin. Bye.